السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان إذن سلامة أصحابتي إيقو قالقة ميل والبودوني دكا جوكتان مقعيقو ومريم كسو دوادا جانن كيغا maanta maxaan idin hayaa maanta waxaan rabaa inaan suubiyo borotiin haddii uu ku anfaco borotiinkan aan sameynayo fadlan subscribe dhajanankayga like saar si aad u ogaato wax badan borotiin aad iyo aad u macaan oo maxay ahayd wax badan aad ka faa'iidi doonto insha Allah haddii aad soo baroobayso walaalahayga qaaliga ah sidaad u jeedin jibnada iyo mooska waa maxay ahayd isha wax aad iyo aad وفيعن أو نطرال كل جود بوحة ماشان يالو دن أو سمي دون ووح نطرال أو كبح دول كينا إيه حوله هنا كيمده marka insha Allah ta'ala waxay idin samay doonaan wax badan ayaad ka heli doontiin haddii aad tahay qof isboortiyeeya oo biraqaad qaada oo waxaan ku dhigi karaa raba inuu murqa sameysto iska daabudada meelaha laga keenayo maxay ahayd isha waxa ka fiican waxa naturalka ah oo gurigaaga ku sameysatay ayaa ka wanaagsan ku sameysa gurigaaga saas aad u jeeda ayaan u sameeyay walaalayaashayda saas ayaan u sameeyay maxay ahayd ishaageen waxaan sameeyay oo kuntaas waxaan ku daray 2 xabbo blenderka ayaan ku shubtay maxay ahayd si wanaagsan wax badan ayaad ka faa'iidi doontiin haddii Ilaahay raali ka dhigo ilmaha caatada ah hooyada umusha ah waxaan ku dhigi karaa dadka miisaankoodu yar yahay dadka aan murqaha haysanin murqa ay dhalayaan dadka maxaan ku dhigi karaa ilmaha caatada ah oo cuntada diida aad iyo aad ay u important ugu yahay waa kana kaasna waa ku daraaya wax yar oo waxa ismaaga ayaad maxay ahayd ishaga ma sha Allah macaan iyo wuxuu u yeelayaa dhanaan yar oo been ah ayuu u yeelayaa si macaan ayuu noqonayaa oo qofka ku soconaya markay cabayso oo maxaan ku raada carafna u yeelayaa marka insha Allah ta'ala walaalahayga maxay ahayd shakhsiyad aad maaragtay aad u qurux badnaatiin oo ilmihiina ma sha Allah ay u noqdaan oo haddii aad umul tahay oo waxaan ku dhigi karaa isha cunuga oo caano badan kaaga helo oo adiga haddaad ku soo caatowdo cunuga urkiisa aad u ayisho oo qurux badnaato oo maaragtay midabka dhintay waxaan ku dhigi karaa hilib maxay isha jirka dhinta oo kaaga baxo oo maqaar yar oo qurux badan oo shayni aad u yeelatid waxaan kugula talinayaa inaad subax walba koob ka cabto maadaama aad umul tahay maxay ahayd isheeg haddii uu cunugaaga oo caata yahay oo waxaan ku dhigi karaa isheeg oo na rab cuntada uu ku xun yahana waxaan ka codsanayaa inaad koob ka siiso sidaad u jeeda faniilan ku daraaya aad iyo aad ay u caraf badnaysiinaysaa wuxuu noqonayaa smooth si aan caadi ahayn oo caraf iyo macaanba ayna kala dhicin oo isku dheeli tiran marka insha Allah aniga maxay ahayd aad iyo aad ayaan uga faa'iiday saas darteed ayaan idin la soo qaybsaday cunugayga caata ayuu ahaa jiriyay asxaabe haddana ma sha Allah tabarakallah markuu banaanka maray Maryam wiilkaaga caato ahaa jira maxaa ku samaysaa alay dhaha qof walba saas ayay dhahdaa sirtan ayaa maxay ahayd ayaan u suubiyay san ayaan u sameeyay marka insha Allah ta'ala waxaan isir waay ay calo maxay ahayd isha sabab ay adiga le maxay ahayd isha ay kuugu jiraan walaalaha ayaaba u baahan maad la share gareysid saas ayaa qalbiga iga gashay sidaas darteed ayaan idin la soo share gareeyay marka insha Allah walaalahayga qaaliga ah waxaan idinka codsanayaa inaad soo baroobaysiin hadda xooga wuu iga adkaaday marka waxaan rabaa inaan wax yaro caana intaan ku daro xooga maaragtay smoothie shub maaysi igu noqay xooga wuu culus yahay marka insha Allah waxaad ka helaysin aadinka markaad baroobaysiin ayaad maxay ahayd ila soo hadli doontiin insha Allah ta'ala markuu miisaankiina kor noqdo waxaan ku dhigi karaa wax sokor kuma jiraan timir ayaa ku jira iyo moos macaan ku jiro iyo yogurka macaan ka dhigaya sokortu waxay sameysaa subag ay caloosha u yeeshaa markaas ay caloosha gelisaa laakiin tan maya malaha waxyaabahaas oo dhan malaha calool dhan ma ku dhalaysid sidaada kale ayaad isaga qurux badnaanaysaa haddii maxaan ku rahdaa isha xoogaan culays noqonaysaa miisaankaaga kor noqonaya ma ahane calool dhan ma ku yeelanaysid sababtoo ah sokor ma ku jirto waxaa ku jiro maxay ahayd isha timirta iyo waxaa ahayd isha yogurka iyo maxaa la dhahaa mooska intaas ayaa sokor iyo macaan ugu filan marka insha Allah walaalahayga 3 bakeeriyan soo diyaarsaday 3 qofood ayaan ugu talagalay oo maxay ahayd gurigeena ugu caataysan ayaan siiyay ayaan maxay ahayd isha u isticmaalaya 3daas koob ayaan u isticmaalay oon siinayaa 3 qofood ayaan
ugu talagal hadduu ilaahay yiraahdo marka insha allah walaalahayga qaaliga ah waa kaas ayuu qurux badnaada oo maasha Allah tabarakallah u noqday ilaahay waxaan ka baryayaa intaan haysan inuu ilaahay siiyo inta haysatana ilaahay u siyaadiyo maanta maxay ahayd fiidiyowgeena intaan ayuu ku egyahay saxaabteyda intaas ayaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh